jirjirayd oo si wada jir ay ugu wada qabteen halkani oo ah gudaha qasriga madaxtooyada ee Somaliland madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha golaha gurtida ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Baasha Maxamed Faarax dhammaantood waxay si wada jir ah bulshada Somaliland ugu baaqeen inay si toos ah u qaataan awaamiiraha iyo fariimaha uga imanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ee ku aadan xaabuqa sida weyn dunida ugu fidaya ee coronavirus. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inagu itaal ma hayne isaga awood leh gacmahaynu taageynaa inuu Ilaahay aafooyinka ka dhawaa adduunka oo dhan ka yaabiyay nahareer mariyo Ilaahay itaal ma leeyahay ka baryaynaa maanta halkan qaranka madaxdiisu waxay isugu timid qodobka ugu weyn waxa weeye in laga hadlo sidii aynu soo kaashan lahayn inagoo mid ah uga badbaadi lahayn dadkeena uga ilaalin lahayn intii suurtagal ah inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus xanuunkaas oo cid walba ka yaabiyay wax lagu heshiyo adduunka oo dhan isku afkarsay in laga bixi karo kaliya talo dawo male wax laga hortago male talaal male caalamka oo dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo waanada u kala qaato wixii uu dano isfahamsiyo amba aad iyo aad looga deerinayay waxaynu u sameynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo is-abaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhalinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Somaliland dhammaantood si uga hortageen ugu dadaaleen in laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii wixii la oran lahaa madaxweynaha yiri annagu waxa weeye waa ayidana mid waxa weeye waa cudurkan suuqa hargeysa haddaad martana sidii baa la soo dul saaran yahay haddaynan dee qof walba naftiisa ilaalinna hadal wax la yiri ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayay guddiyaal loo sameeyey waxa laga hadlayay waxa weeye kala fogaada haysa salaamina Soomaalidina qof walba gacantu soo taagaya dabadna dawad xishoonaysa nin weyn oo oday oo gacan ku soo taagay aad iska dhibatay kale waynaad wad salaamaysa waxaan xukuumadana u soo jeedinayna waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan haday masjiddan ay ninka qayilaya laantis ha qaato qolkiisa ha isku xiro laakiin haddii de masjidada sidii u furan yihiin oo suuqii sidii loo tuban yahay waxay tagaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragteen dhulka kale oo ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaraya dadkii waad aragteen sidaa de madaxweynuhu sheegay waxa weeye waa inaynu amarada qaadanaa oo wixii talooyina ka timaada caafimaadka iyo guddi loo sameeyaa waxaan ku darayaa waanu mahadnaqayaa imaanaadka inoo soo gurmaday waxaan jecelahay guddidu inay meelo badan ay macaawino weydiisaa arrintan adduunku waa arrin midaysay baa weeye oo loo kala saraynin waxa WHO da waa nala jooga xafiis baa ku furan yahay halkaa waxa weeyaan loo yeeraa oo wixii macaawino u baahan la weydiistaa baa weeye taas fariintii maanta ugu muhiimsanayd madaxweynaha jeediyey annaga waxay aan halkan ka nidhaahnaa waa kaabis marka arrinta coronavirus-ka maanta cudur innaga inagu kooban Somaliland maaha waa amar ilaahay oo dunida oo dhan haysta waxaan ku talinaynaa in guddigaas awaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli maynaan qaadan maqaaxii sidii bay isaga buuxaan kolayadii qaadka sidii bay u camiran yihiin marfishyadii lama xidhin marka talooyinka qaacidada leeyahay guryaha jooga oo ku nagaadana qaacido gaala keentay maaha waa qaacido islaami oo islaamku waa kaa yidhi marka cudur dhaco oo daacun ka mid yahay guryihiina jooga marka shacbiga waxaan soo jeedinaynaa inaynu u dhiga nuglaano
cudurkuna wuu soo kordhayaa waddamadanu jaarka nahay dadka uu saameeyey way soo kordhayaan innaguna kama duwanin ummadaha kale markaa taxadarkeenu ha bato talada ha la qaato xukuumadduna awaamiirta iyo talooyinka fulinaha ku darto la tahay madaxweynaha dhameeyey madaxweynaha waxaan hadda ku khilaafo arrimihii taagtaagnaa intii uuna yidhi waxaan maanta ku khilaafo ku ayid mooye ma hayo عيدروس محمد عينان قبجوك حرقيسة